dadkii u muuqatay in loo baahan yahay ciidan qaran oo dowladana sal u dhiga ammaanka dadkana xasiliya waxaa la abuuray markaa oo ka dhalatay in la abuuray guutadii koowaad iyo guutadii labaad iyadoo lagu saleeyey saamiga beeruhu ku kala lahaayeen golaha guurtida ilaahay baa mahad leh ammaanna waxaa leh raggii hawshaa hirgeliyey taasoo aataa maanta aan kaga libaysanay aynu qayrkeedna kaga wanaagsannahay horumarkana aan ku gaadhnay ciidanka qaranku intii ka dambaysay wuxuu ku dhaqaaqay sidii maamulka dawliga u fudin lahaa ee gobollada loo gaarsiin lahaa number 2 sidii ciidanku u sugi lahaa xuduudaha dalka jamhuuriyadda Somaliland number 3 wuxuu ku tallaabsaday sidii tababar iyo tayada ciidanka kor loogu qaadi lahaa number 4 wuxuu abuuray dugsiyad tababar iyo dhaqan celin loogu sameeyo ciidamada qaranka jamhuuriyadda Somaliland waajibaadka ciidanka qaranka jamhuuriyadda Somaliland difaaca ilaalinta qarannimada jamhuuriyadda Somaliland madax bannaanideeda dalkeega iyo dowladnimadeeda number 2 gacansiinta ciidamada kale iyo hay'adaha kale ee dawliga ah marka ay sugayaan amniga qaranka taageeridda iyo gacansiinta dadweynaha jamhuuriyadda Somaliland hadday timaado xaalad degdeg sida aafada iyo waxyaalaha soo kordha ee kale ee dabiiciga ah dhinaca tababarka ciidanka qaranku wuxuu leeyahay 4 dugsi oo lagu tababaro ciidamada dugsiga Darweyne oo gobolka Maroodijeex ka tirsan dugsiga Sheekh oo gobolka Saaxil ka tirsan dugsiga Samakaab oo gobolka Sool ka tirsan iyo dugsiga Bixin oo ka gobolka Sanaag ka tirsan ilaa hadda saddex dugsi ayaa ku jiraan ciidamo dhibooya oo lagu tababaraa kulliyadda Cabdillaah saraakiisha Cabdillaah askari waxa tababar ku qaatay shaqo qaran waxaana hadda ku jira jaamiciin shaqo qaran ee doortay inay ku biiraan ciidamada kala duwan ee qaranka booliiska usluubta ciidamada badda oo qaadanaya tababar hal sano waxaa xusid mudan inay ka mid yihiin 10 hablood oo saraakiil noqonaya oo aan tababarka ciidanka waxba looga naxariisan sida rag u qaata waxa kaloo ku jira saraakiil hal sano uga harsanay tababarkoogii sanadka horena Itoobiya ku soo qaaday sanadkii dambana halkan loogu dhameystirayo tababarada dibadda ciidanka qaranku tababaro badan buu dibadda u diraa tusaale ahaan halkan waxaa ku aragtaan waa ardaydeennii balaata meel yidhaaho ayay joogaan oo 350 kilomitir u jirta Addis Ababa tababar waxay ku sameynayaan halka balaata waa arrin run ah weey ciidamadeena danab yaa ku tababarta halka waxa tababar dibadda noogu maqan war college kulliyadda dagaalka saraakiil baa noogu maqan staff college-ka saraakiil baa noogu maqan junior staff college-ka saraakiil baa noogu maqan waxaasoo dhan waa infantry-ga leeli sarkaal iyagoo inoo maqan yihiin intaa aan soo sheegay oo kale 6 bilood kadib ayay soo dhameynayaan tababarkoogii oo ku eegay bisha August buu ku eegay meelaha waxa kaloo noo maqan farsamo yaqaano 3 sano koorsa baranaya maadaama dadkii hore gaboobeen in farsamo yaqaanada nooc kasta haddii la tababaro iyo isad farsamo yaqaan 3 sano noogu maqan yihiin waxa noo maqan injineero iyo dhakhaatiir digriga koowaad iyo digriga labaad isku jira oo haddana ku maqan
koorso dheer. waxaa sanadkan loo qorshaysan intaa iyo in kale ilaahay hadduu na gaadhsiiyo insha allahu tacaala. dhinaca dhismaha waxaa sanadkan loo hirgalay deyrka ciidanka qaybta 12aad ee Burco oo 600 mitir ah. dhismaha guriga weyn ee jimicsiga ama jimnaastika oo ku yaala miiska saraakiisha. dhismaha cusbitaalka ciidanka qaranka oo ahaa inuu dabaq ahaado laakiin hadda qaybtii hoose noo dhamaatay insha Allah qaybta sarana aan sanadkan dhamayn doono madaxweynuhu soo furay qaybtii hoose. waxaan daayacto ku sameynay xiriirka ciidamada. waxaan sameynay waddo laamiya oo isku xidha iridka qaybta Sodon-Koowaad ilaa taliska qaybta. waxaa sanadkan loogu jiro qorshaha in guryo la seexdo iyo xafiisyo laga dhiso qaybta saddexaad ee Ceerigaabo gobolka Sanaag. waxaa kaloo qorshe loogu jiro sanadkan bilaa soo socda cusbitaal ay dhisi doonto dowladda Ingiriisku oo hal dabaq ah oo ay qalabayn doontana ilaahay hadduu idhaaho oo laga dhisi doono halka cusbitaalka hadda la furayay ku yaalo taasoo ciidamada qalabka sida amba nooc kastaba ha ahaadana ay wada isticmaali doonaan. waxaan aasaasnay hay'ad dhismo oo markay ku filaatay ciidanka qaranka ka qayb qaadata qandaraasyada magaaladana. waxaana hay'adaasi ku soo guuleysatay dhismihii deyrka madaxtooyada, dhismihii shaqo qaran ee Darweyne, tariiqooyinka salaanta lagu bixiyo. iminkana waxay dhisaysaa hoyga taariikhda ah ee laga dhisayo bartii khayraado ay ahayd ee caasimadda Hargeysa. mudane madaxweyne gaadiid badan baa loo iibisay sanadkan iyo sanadkii hore, haddana baahida gaadiidku waa mid joogta ah oo mar walba loo baahan yahay. dhinaca howlgalka ciidanku wuxuu sanadkan u badnaa gobolka Sanaag. waxaa ka mid ahaa shaqaaqadii beelihii Ceelafweyn iyo Darweyne isku leenayo oo nagu fogaato in badan soo socotay. insha Allah ilaahay mahadi hadda nabad baa laga gaadhay, laakiinse in badan baa ciidanku ku rafaaday arrintaasi shaqaaqadaasi. waxaan howlgal la galay Damalaha Garre ayaan ka galay oo nin wasiiriintu ciidan badan soo kaxaystay oo Puntland halka la yimid. dagaal waxoogaa ayaa dhacay, khasaarana waa dhacay, inkastoo dhanka iyaga aanay jirin laakiin dhanka kale khasaaro waa ku dhacay. waxaa kaloo hore ugu soconay Yube oo Hadaaftiima ku dhow oo filaya Hadaaftiimana waxay noo jirtaa 20 kilomitir, Banaanina waxay noo jirtaa 50 kilomitir. ciidanka halkaas ugu raas. waxaa kaloo wax ka qabanay shaqaaqadii gudaheena ahayd inamadii dhalinyaradii la qalday oo halkooda ku kontoyn garanay si aanay rabshad ugu sii badan in halkooda ku haynay. nasiib wanaagna hadda ka mid noqday ciidamadii qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. mudane madaxweyne adoo taliyihii guud ee ciidamada qalabka sidoo dhan waxaanu diyaar u nahay wixii shicibka aan uga ballan qaadnay ahaa in aan xadka qarankaas sugno. ilaahay idankii inaan halkaa gaadhno oo ilaahayna ka rajeynaa diyaarna u nahay inaan amar ku qaadano diyaar u nahay. waxaa ciidanka qaranka lagu yaqaan inuu mar walba yahay ka maamulka dowliga fidiya. mar walba meesha uu tago laga sameeyo maamulka dowliga. waxaana tusaale magaalooyinkuna ku camirmaan. waxaa tusaale ugu filan oo hadda Tukaraq oo tuulo yar ahayd maantana caasimada
والله كي كون شنطة بقول يوحى ما أنت شن كون أو مريو وحكروا تعال كنا يبي ويدنا تولي رهيب ما أنت هو ماشي أقول لك على بدن قبل كسنات أي تاي ما أنت صوت نوح وين عيدك إذا مضوا ماشي يدنا ويا عمران وحكى قرنا يدك مركو أول ولا قاضو إلى تجرب ندك جونا ويقرنا ينسدودك وهانجري مركو إذا ما تجي استيك هدقة ويا عمران إذا ما مغيرينك waxaan tusaale haddaan soo qaado afmadow oo tuulaya markaa ahayd degmada ku magacawneyd ayaa waxaanu dejinay haabiil oo markaa ahaa taliyo urur muddo yar bay tuuladii caasimad ku noqotay sidaasoo kale ciidamadu meeshay degaanba u camiraan dadkaana ka markhaatiya waxaa kaloo madaxweyne jira ciidankeenna hadda jooga وإلهي هنون إلهي بقى جاسيه وكأخلاق وناسيه وكأنشح وناسيه وكبسم الله وناسيه إذا ما دي عن حكم جري عن كونفور عن مكان شغلنا عن حكم جري أنت مو كم وناسيه واحد نظام الخاتية ضد الشعب كا أيام نظام الخاتية وما فعلنا لكن ضد كان لو يدينيه والعيدة كاسي سدوية وذلك وحنا ما ندري دمان إذا ما جيدها هراء بريء البلد كنا أمانة يعيش حوانا سن وعيد قوة كلهم بد كجرا بدنا بد كجرا نوا شعبك هذه شعب كهرة نقوله عيدكم متشوي كراميل مركا عيدك يا شعب كوي ويسوقلين يغنى وقوهم بليانين سيدا وانا سنة ودقمين ولما يروحن عافمات تنسقود الري dadku bukoonaya wixii halkan uga taagweynay ilaa 60 qof ayaa u diray Ethiopia ilaahayna intoodii badneed caafimaadkii way ka heleen ilaahayna waa soo dhaweeyay waxaan hambalyo u dirayaa iyo bogaadin dhammaan xubnaha ciidanka qaranka xaasaskooda meel kasta ay joogaanba munaasabadan 26 guurada ka soo wareegtay asaaskii ciidanka qaranka ilaahay waxaan uga barayaa inuu gaarsiiyo basbashiya barwaaqo ku gaarsiiyo sanadkan sanadkiisa waxaan mar labaad uga mahad celinayaa marti sharafta ka soo qayb gashay munaasabadan waxaan ku soo dhaweynayaa wasiirka wasaaradda gaashaandhigga